wadanta shaqaali dalkayo waxaanu nahay dalkayo wadanta asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaantiin dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii shaqada iyo shaqaalaha barnaamijkeenna shaqada iyo shaqaalahana toddobaadkan waxaaynu ku soo qaadanaynaa oo aanu ku waraysanaynaa ururka barayaasha somalilan oo aanu ku booqannay xafiiskooda islamarkaasina aanu ka waraysanay taariikhda ururkaasi macallimiinta oo marka magaciisa lasoo gaabiyo la yidhaahdo soolta ururkaasi oo dib looga yegeelay dhowaan somalilan islamarkaasina leh taariikh hore oo fog ayaa waxaa aanu ka waraysanay taariikhda aasaaskiisa iyo weliba ujeedooyinka ay macallimiinta ururkaasi ay u samaysteen gudoomiyaha ururkaasi soolta macallimiinta cismaan jaamac xasan ayaanu ku waraysanaynaa xafiiskiisa ku soo dhowey cismaan barnaamijka shaqada iyo shaqaalaha ugu horreyn waxaan ku weydiinaynaa bal taariikhda aasaaska ee ururka macallimiinta somalilan bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu aleyh wasalam aad iyo aad baad umahadsan tihiin waan idin soo dhoweynayaa haddii aan in yar ka hadlo taariikhda ururka macallimiinta ee somalilan teacher association loo yaqaano solta ama ururka macallimiinta somalilan taarikhda haddaan dib ugu yar noqdo ururkan waxaa la aasaasay 1946kii ayaa la aasaasay markii ugu horreysay oo magaalada hargeysa lagu aasaasay ururkaasi 64kii ilaa iyo 69kii si toos ururkaasi u shaqaynayey oo uga howlgelayey ururku markaa intaa hore uu saas ku shaqaynayey wixii dambe markii dambe ee wadanka dib xoreyntii wadanka lagu soo noqday ururku mar dambe ayaa dib loo aasaasaya oo waxa weeyaan loo markaa dib loo unkayaa oo macallimiintii somalilan ee xilligaa markaa joogay ay dib u aasaaseen 93kii marka ay ahayd ayaa dib loo aasaasay intaa wixii ka dambeeyey haddana dee duruufihii kala duwanaaye ku hareereysnaa ama ku giblanaa markaa dadku yani wadanka oo dhan ayuu ururku la qabay taa marka uu ka soo gudubno markay ahayd 2006dii ayaa mar kale ururku haddana macallimiinta ay dib u xoojiyeen oo dib loo bilaabay marka asaaskii haddana dib loo bilaabay marka si rasmiya waxaa ururka xilligaa looga siiyey markaa shahaadadii iyo aqoonsigii looga siiyey wasaaraddii markay isku jireen wasaaraddii caafimaadka iyo wasaaraddii arrimaha bulshada marka ay midaysnaayeen laysankiisa markaa xilligaa la siiyey intaa wixii ka dambeeyey haddana dee wadanku dhismuu ku jiray wadankeeniyo maalinba meel baa la marayey duruufo kala duwan iyo xaalado kala duwanba ayaa lagu soo jiray duruufaha kala duwan iyo xaaladaha kala duwan buu ururkuna uu ka mid ahaa ururadii markaa ula jaan qaadayey aakhirkii 2020kii ayaa ururka si xooga ay macallimiintu ay isu abaabuleen oo maadaama ururka urur sharciyeysan uu yahay lagu talagalay in ururkaasi uu shaqeeyo oo laga dhigo mid active oo shaqeynaya oo laga shaqaysiiyo runtii markaa abaabul fara badan iyo waxa weeyaan oo ay macallimiintu ay gobollada iyo degmooyinku ay isugu yimaadeen ayaa waxaa abaabulkaa ka soo baxay in haddana iminkana yani 2020kii markay ahayd in ururka ay mar kale ay shahaado ka qaataan wasaaradda arrimaha bulshada iyo somalilan ay ka qaataan markaa ay dambe ee shahaadada cusub ururka la siiyey ee liisanka la siiyey dambe yani kii hore markaa uu xiriirka la lahaa waxaa la bilaabay markaa sidii ururkii loogu samayn lahaa shirweyne loo gaadhsiin lahaa ayaa runtii markaa aanu ka shaqaynay shirweynahaas waxaan ugu talagalay in markaa ay ka soo wada qayb galaan macallimiinta gobollada iyo degmooyinka gaar ahaan 6 gobol ee waaweyn ee jamhuuriyadda somalilan 20 December markay ahayd ayaa waxaa lagu qabanayaa shirweynihii u dambeeyey ee ururka lagu qabanayaa magaalada hargeysa gaar ahaan hoteelka Mansour ayaanu ku qabanay shirkaasoo ay ka soo qayb galeen dhammaan gobollada jamhuuriyadda somalilan 6 gobol ee waaweyn macallimiintii markaa yani guddida markaa ahayd matelayey gobollada matelayay markaa ka soo qayb galay shirka waxaa ka soo qayb galay 500 oo ergey oo isaga yimid
gobollada kala duwan ee jamhuuriyadda somalilan ee 6 gobol. Imanka tirada ururku marayo waxa weeyaan tiradu maraysaana waxa weeyaan waa ilaa 1500 ay tiradu imka ay maraysa oo guud ahaan ka kooban gobollada oo dhan. oo shirka halka markaa lagu doortay guddidii fulinta iyo guddidii golaha dhexe iyo hogaankii gobollada intaba halkaa lagu sameeyey. shirkaas markaa halkaasuu kusoo gabagaboobay oo ururku hanaqaadkiisii u dambeeyey halkaasuu ka hana qaaday oo uu ka bilaabay. iminkana gobollada oo dhan uu ka shaqeeya ururku xafiisyo ku leeyahay 6 gobol oo weyn xafiisyo ku leeyahay sida tusaale ahaan oo kale awdal oo kale togdheer oo kale si fiican buu ururku markaa uga shaqeeyaa. kulli markaa dee waxaanu ku jirnaa weli dee raadqaad baanu ku jirnaayo ururku sidii la doonayo umuu wada shaqeynin laakiin haddana si fiican buu ururku u socdaa imanka hawlihiisa u socdaan. waynu iman doonaa waxyaabaha aad u baahan tihiin in laydinka gacan qabto iyo taageerada aad ilaa hadda aad u baahan tihiin. laakiin ujeeddada ururkan ku weydiin lahaa kolley urur maadaama laysu yimi oo hawshaa gasheen oo shirweynaha qabsateen ujeeddaa ka dambeysay in aad ururkan samaysaan ama baahi baa jirtay maxay tahay ujeeddooyinka uu ururkani daboolayo ee aad u aasaasteen? runtii waa su-aal aad iyo aad u muhiima. ujeeddooyinkan u aasaasnay ururkani waa ujeeddooyin ay ka dhalatay baahida ay macallimiintu ay qabaan arrintaas ay ka timid. waa badan yihiin ujeeddooyinkan u aasaasnay laakiin haddaan qaar kaaga xuso oo aan qaar ka sheego waxaa ka mid a iskaashiga iyo istaakulaynta iyo iskacanqabashada iyo iska warhaynta macallimiintu inay iska warhayaan oo kooga xanuunsanaya ay gargaaraan oo wax u qabtaan, kooga dhibaataysanaya kale dhibaata haysata ay dhibaatada ay la qaybsadaan, wixii kii la caawina ka geeriyooda in la caawiyo, ka duruufo kale ay haysan in la caawiyo. runtii qodobka ugu muhiimsan waxa weeyaan macallimiintu inay iscaawiyaan oo ay istaakuleeyaan maadaama bahda macallimiintu ay yihiin iyagu dee yani qabiilka gaara macallimiinta ay yihiin in iyagu ay istaakuleeyaan oo ay iska warhayaan oo ay isgarab galaan. muhiimadda ugu weyneed kuwaasaa ka mid a. waxaa ka mid a macallimiinta gobollada dee somaliland maadaama ay dad yani gobollo kala duwan ay ku nool yihiin isdhexgal inay marka arrintaas ay keento oo macallimiinta isdhexgalaan oo ay isbartaan oo waxa weeyaan aqoon isweydaaris markaa ay sameeyaan oo yani waxa weeyaan arrintaas markaa dee oo ku dhiirigelinaysa dhinac marka laga eegana in qabyaaladii laftigeedii iyo kala qoqobkeena marka ay dee meesha laga saaro. waayo waxaan dee qabyaaladda la yidhahda cidna may dhaafine macallimiintuna bulshada somaliland unbay ka mid yihiin marka si ay bulshada isu dhexgeli lahayn isdhexgalka qayb weyn ba ay ka tahay. waxaa ka mid a waxyaabaha kale loo aasaasay kobcinta ka qayb qaadashada waxbarashada wadankeenu dibudhis buu ku jiraa, waxbarashadiisu dibudhis buu ku jiraayo dhinac walba dibudhis baynu kaga jirnaa. marka kobacii waxbarashadana inay qeybtooda ay ka qaataan oo ciddii markaa waxa weyan ay kala qayb qaadan kareen sida wasaaradda waxbarashada kale inay kala qayb qaataan ayay ka mid tahay. waxaa ka mid a ujeedooyinka loo aasasay la dagaalanka qabyaaladda si qabyaaladii loo yareeyo oo bahashaas aqoon lagu bedelo oo dee aqoontii looga faa'iidaysto markaa loo yareyn lahaa waa ka mid oo qayb bay ka tahay. horumarinta iyo daryeelka macallimiinta ayaa ka mid a. macallimiinta iyo waxbarashadoodii yani laga qayb qaato si ay macallimiinta u horumari lahaayeen waxbarashadooda, daryeelkooga caafimaad sidii loo horumari lahaa oo looga qayb qaadan lahaa waa ka mid. waxaa ka mid oo kale haddaan kusii daro cilmi baadhista iyo xog ururinta inay markaa iyaduna qayb ka tahay. oo marka la doonayo mashkulad wadanka taala in la xaliyo waa in daraasad lagu sameeyo. daraasadaas markaa macallimiintuna maadaama macallimiintii dee qaranka wadanka ay yihiin iyagu waxyaabaha markaa muhiimka ay taargetka saaraya waxaa ka mid a in mashaakilada si loo xaliyo in daraasada la sameeyo. daraasadahaasina marka ay noqdaan kuwii xalku kasoo bixi lahaa. aad iyo aad si fiican baad u sharaxday ujeedada ururka. waxaa iyaduna isweydiin mudan muhiimadda horta ay leedahay in urur la samaysto weliba ay macallimiin maadaama tiin idinka inaad urur aad samaysataan muhiimad intee leeg bay idiin leedahay bulshadana u leedahay dowlad ahaan ama dal ahaana ay noo wada leedahay? runtii waa su-aal aad iyo aad u muhiima. waxaa weeye gacmo wada jir bay wax ku gooyaan ba ay soomaalidu ay tiraahda. marka waxa weeye ummaddu da marka ay midaysan tahay ay dad markaa ay isu tagaan waa xoog weeye, waa awood iyo xoog oo wax fara badan oo markaa uu qofka iyo labada iyo saddexda aanay qaban karin ayay isku qabanayaa. marka macallimiintu
runtii ballaadhan faraha ballaadhan aadka u badan looga faa'iidaysan karaa horumarinta waddanka ayaa looga faa'iidaysan karaa inay iyagu iscaawiyaan inay istaakuleeyaan inay iska warhayaan runtaa marka arrintaasi waa yani muhiimadda annaga inoo leedahay waxaa garanaya de qof dhibaataysan oo macallimiintu marka ay garab galeen ama ay garab istaageen marka ay taageereen ama ay wax la qabteen ayaa garanaya marka runtii waxa weeyaan qaran ahaanna faa'iido badan bay noo leedahayoo dee waxa weeye bulshadu in loo hogaamiyo community organizations inay markaa organizations ay bulshada ay noqoto. ugu dambeyn waxaynu soo gaadhnay su-aashii ugu dambeysay oo ah iyaduna ku saabsan fariinta idinku aad doonaysaan inaad dirtaan qeybaha kala duwan ee bulshada iyo hay-adaha kala duwan ee taageerada aad ka rabtaan maadaama ururku yahay urur hadda dee sidee aad xustay adiguba urur hadda la aasaasay oo hadda koritaankiisu socdo maxaad fariinoo diraysaa? fariinta halkan ka dirayaa waxa ay noqonaysaa waxaan ka codsanaynaa shirkadaha ganacsiga hay-adaha dowladda iyo hay-adaha caalamigaaba labadaba waxaan ka codsan lahayn inay maadaama ururku uu bilow yahay ururka ay nala garab istaagaan oo ay nala dhisaan maadaama ururkani uu faa'iido badan iyo qiimo badan u leeyahay bulshadeenna iyo waddankeennaba uu faa'iido badan uu leeyahay ayaa mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka fogba labadaba uu leeyahay runtii aad iyo aad baan markaa uga codsan lahaa inay markaa ayna garab istaagaan oo ay nala dhisaan si uu waxa weyaan ujeedooyinkiisa iyo markaa muhiimadda uu leeyahay muhiimadda uu doonayo inuu gaadho markaa ururka loo gaadhsiiyo qaybaha kale doonayna markaa aan doonayo markaa inay ay na garab galaan waxaa ka mid a qaybaha hay-adaha markaa dowladda sida wasaaradda waxbarashada oo kale oo runtii wasaaradda iyadii aanu ka tirsanayn ah oon aad iyo aada ugu ammaanayo waxqabadka la taaban kara ee dhinacyada kala duwan ah ee ay muujisay muddooyinkii u dambeeyey aad iyo aad baanan ugu taageeraynaa oo aanu ugu faraxsannahay yani sida weyn ee markaa ay waxbarashada markaa ay wax uga bedeleen ay kor ugu qaadeen runtii waxaanu ka codsan lahayn oo aanu ka dalban lahayn wasaaradda maadaama wasaaradda aanu ka tirsan ay tahay inay si gaara ay ururka ula shaqeeyaan oo ay taakuleeyaan oo ay waxaweyaan ay barbar istaagaan ururka maadaama aan isku bahnahay oo dee bahdii waxbarashada aniguna aanu qayb aanu ka nahay aad iyo aad baan markaa intaa markaa aan uga codsan lahaa wasaaradda waxbarashada waxaana ku bogaadinayaa waxa weyaan sida qiimaha leh ee aadka markaa u qiimaha badan ee waddanka waxbarashadiisa markaa u hagayaan ay u hagaajiyeen taana aad iyo aad baan ugu bogaadinaya. khaalid aad iyo aad baad mahadsan tahay booqashadaadna soo booqotay iyo waraysigaan idiga qaaday adiga iyo radio hargeysaba aad iyo aad baad mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullah. waa hagaagintaana dhegaystayaal waxaynu ugu dhan barnaamijkeennii shaqada iyo shaqaalaha oo ay iska kaashanayeen radio hargeysa iyo wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoyska tan iyo intaynu barnaamijkan mid lamida isugu iman doono nabadgelyo. Danta